الرحمن الرحيم إلهي مهدي ويه هدين ما أنت تاجنهاي قبل فيس كي لبعض أو أنا مقدر شغلنا ماشي لورين شري كوري كودلكا أو هيد ميلها وقرب تبادل له سلطة قوارض مركب حل جوجا الحمد لله وددي بالقبل له هرجيسة أنت دي بدنايد عركاوض ويسارنتها مركب لقطة 3 كيلومتر كنا قشعة وهباسوين يوم حياة مقالة taasi oo markii hore la sameeyay laakiin roobabkii badnaa ee sanadadii dhaweyda ay damage badan gaarsiiyeen kaas ay imika la wadaa oo soo aragtay in caratuulkii halkaas saaran yahay intii kale way dhamaystiran tahay halka aan taaganahay iminka ilaa iyo magaaladii Gumburuhu way isku xidhan tahay balgobadle marka laga yimaado ilaa 6 kilomitirna way dhamaystiran tahay banka oo aan u baahnayn isagu runtii wax badan oo laga qabtana hadii ilaahay ka dhigo waxa loo bilansay yahay rabadaanta aniga waxay ugu dambeysay sanad ka hor wadadan maanta waxa iiga dhigan tahay in wadadii gabigeedii dhamaatay ama ay iyadoo daamiro oo kale waayo markii hore xitaa waa la lubi jiray maanta laakiin cid lumaysaana ma jirto roobku celinayaana ma jirto wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye riyooyinkeeni ayay qaar ka mid yihiin maanta la soo gabagaboobay ilaahay amarkiisa inta kale ee harsan daamura wax kale ah way inoo dhamaan doontaa waxa uu yar baahanaysa kulay markay roobabku daan yar rehabilitation dambe way roobabku carakaawada waxay ka qaadaan dheeha sare marka waxaynu la dul taagnaan doonaa intaanu daamurka ka saarayno waxaynu diyaar u ahaanaynaa inaynu mar kasta wixii yare damage ku yimaado aynu dhamaystirno injineeradii ay dawladdu soo dirtay ee hawlaha guud waa kiimika warbixinta bixinayay insha Allah iyaguna way nala joogi doonaan inta wixii hawlaha ay dawladdu uga baahanayno way nala qaban doonaan imika halka gacanta u baahan tahay waa gacantii dadweynaha iyo qaybtii labaad saddexaad ee wadada Hargeysa bilgabadle insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa hadda noo gabagaba 15 kiiloomitir aanu bishii 12 sanadkii 2019 ka aanu bilownay ayaanu hadda 2020 ga aanu kala bixintiisii qaraaciisii wadnay 13 kiiloomitir oo kamida waanu qaraacnay 1 kiiloomitir oo habaasweyn ah oo imika carra dhigista ku socoto oo kaliya taan noo haray imika halka aanu joognaa waa goray ku dhalkii waa halka u dhaxaysa habaasweyn iyo jawaaqe ee dadweynuhu ay aadka uga cabalayeen xilliga guga iyo xilliga jiilaalka oo aad u bood badnayd maanta wada arkasaan gaarigu 5 ayuu ku marayaa wadadii habaasweyn ilaa iyo jawaaqe meel ku qabalaysa ma jirto 6 kiiloomitir ee balgobadle ka soo bilaamayeen iyadana waanu dhamaystirnay hore waxaad ogeedeen 15 kiilo inaanu dhamaystirnay magaalada Dhiis ilaa iyo Gumburaha oo iyaduna dhamaystirnayd marka laga yimaado daamirka oo kaliya imika waxa noo haray oo kaliya 15 kiiloomitir oo banka ah oo insha Allah iyadana lagu balansan yahay rabadaanta inaanu dhamaystirno marka Hargeysa balgobadle sida waxay ku dhamaystiran carakaawadi marka rabadaanta insha Allah 15 kiiloomitir la raaciyo maanta waxa noo soo gabagaboobay oo 1 kiiloomitir oo kaliya noo harsan yahay 15 kiiloomitir ee ka soo bilaamayay habaasweyn shishadeeda kuna dhamaalayay ilaa marka 6 kiiloomitir balgobadle lagu daro insha Allah marka waxaan rajaynaynaa in wadadii meelihii la galayay ee dadka dhibka ku hayay oo dhani ay maanta dhameystiran yihiin alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidaan injineeradu sheegeen alxamdulillah ilaahay baynu ku mahadinaynaa in qaybihii wadooyinka wadada balgobadle Hargeysa qaybtii ugu weynayd ee aanu aadka ugu rajada qabnay in ay gabagaba ku dhamaatay oo ay nooga harsan yihiin wax ka yar 3 kiiloomitir ama 1 kiiloomitir ay ka harsan yihiin ilaahay mahadi waxaynu ilaahay ku mahadinaynaa ilaahay inoo hirgeliyay markii horena sida khayrka la inoogu dhamayska tiray inta dambana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah in si wanaagsan oo khayr la inoogu dhamaato waxaanu ka codsanaynaa cid kasta oo u dhalatay deegaanka iyo cid kasta oo reer Soomaaliland in ay ka qayb qaataan wadadan balgobadle Hargeysa oo halbowle ah oo u baahan runtii in la maal gashado iyo dhaqaalaba aad ugu baahan waxaan ururweynaha gurmad iyo ururada kale khayriga ah dhammaantood aan ku wada wargelinaynaa in fayskii ugu dambeeyay uu inoo bilaabmayo inagoo u diyaar garoobayna rabadaanta oo aanay waxba walaalayaal inaga xigin isla markaana aan doonayna inaynu ku soo xidhno qaybta carrakaawada iyo wadada garaaceeda
aynu halkaasi ku soo xidhno si marka dambe aynu ugu diyaar garowno daamurka marka ururweynaha gurmad ilaahay khayr ha siiyo iyo ragga kale khayrigaaba waxaan leenahay sidii berigii horeba uga qayb qaadateen inay imikana uga qayb qaadateen baan doonaynaa lacag ahaan waxaan doonaynaa reer gurmad iyagoo naga soo gaadhay lacag fara badani oo ay ka mid tahay waddadan imika aynu dhammaystirnay ama aynu dhammaystirka ku dhow in ay halkaasi lacagtiinni gashay khayr fara badanna aanu idiin rajaynayno in qaybta dambana aad qayb libaax la ka qaadataan ugu yaraan ilaa lacag 70,000 oo dollar ayaa reer gurmad laga doonayaa gudaha iyo dibad ganacsatadeenna lacag ilaa 100,000 baanu ka doonaynaa shirkadaha iyagana waanu u tegaynaa iyagana 100 waxaanu ka doonaynaa lacag dhan 120,000 oo dollar lacagtaas markaanu isu geysanno ilaa lacag waxay isugu kala dhawaanaysaa 300,000 waxaan doonaynaa inaan waddada intii ugu dambaysay iyo inta banka inaanu ku dhammaystirno si marka dambe aan ugu diyaar garowno daamurkii iyo waddada markaasi qurux badnaanteedii marka barakallahu fiikum yeynaan u yaraysanin fadhiga aan ka kacno waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinku ilaahay nagu garab marinayaa aafooyinka dhaxaya ilaahay nagu garab marinayaa ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in xanuunada iyo waxaa wareegaya in ilaahay sadaqadaasi iyo maalgashiga in ilaahay nagu garab mariyo ayaynu walaalayaan rajaynaynaa dembigiin iyo dembiga waalidkiin baa allaha dhaafo ha u yaraysanina aad waxaan u rabnaa inaan qaybtii ugu dambaysay aynu ka kacno weliba gurmad iyo ururadeena kale khayriga oo dhan saasaanu ka wada doonaynaa waana wada mahadsantihiin رب العالمين إلهي با mahad leh maanta halkan aynu taaganahay waa wadadii Hargeysa Balligubad leh qaybaheeda kala duwan ee hore ee carakaawada la soo dhigay waxa ka hadashay gudida qaybaheeda kala duwan halkan aynu taaganahay waxa weeye Balligubad leh afkiisi marka 6 kiiloomitir oo idhanka la dhigay carakaawadii ayaynu taaganahay 6 kiiloomitir iyo inta carakaawada la soo dhigay marka la isku daro waa 16 kiiloomitir iyo 200 waxa gudida u qorshaysan inay rabadaan tana inta banka iyo 2 meelood oo 2 kiiloomitir iyo 20 kiiloomitir carakaawada loo sii gooyo oo la dhigo halka la sallaxo waxaanu halka ka codsanaynaa dhammaan ururada kala duwan ee ku taxalluqa gobolka Hawd inay ka soo qayb qaataan qaadhaanka wadada Balligubad Hargeysa iyadoo maanta ay dhamaad ku dhowdahay oo daamurku inoo hari doono insha Allah bismillaah kariim waxaan halkan gaar ahaan ugu sii mahadnaqaynaa ururka gurmad relief oo mar walba barbar taagan wadada sidii horeba loo sheegay wadada 20 kiiloomitir harsan wuxuu u baahan yahay dhaqaalahaasina wuxuu noqonayaa dhaqaale fara badan Sheekh Mubaarak baa hore u sheegay lacag badan baa laga doonayaa gudida ganacsatada ee beesha Arab ama gobolka Hawd gurmad baa lacag laga doonayaa ganacsatada kale iyo shirkadaha laga doonayaa dawladda laga doonayaa marka inaynu hawsha dhamaystirno ayaynu insha Allah ku tala jirnaa idinkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin hawshaana ka soo qayb qaata aad iyo aadna waa mahadsantihiin imankana waxaan ku soo dhaweyn doonaa maadaama ay wadadii Balligubad la gaadhay carakaawadeedii oo aynu ku sii darayno ilaa iyo cafuufley inaynu hawsheedana gallo oo imanka alignmentkii iyo nidaamkiiba la sameeyay iyo banayntii way cafuufley marayso gudidii farsamada oo nagala joogo kayd mudleeye ku soo dhawow kayd marka hore ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala mar labaadka mahadda labaad waxaan siin lahaa gudida wadada Balligubad Hargeysa oo hareerahayga taagan oo soo gaarsiisay meel fiican runtii halkan aanu taagannahay waa Balligubad waa halkii xuduudkii u dhaxaysay labada wado Hargeysa Balligubad iyo Balligubad dhagax boor aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa meel fiican bay wax dhigeen dadaal bay muujiyeen annagu haddii aanu nahay gudidii farsamo anigoo afkooga ku hadlaya oo qolihii kale ay hawlo wadadun ku taxalluqa ay ku maqan yihiin waxaan idinla wadaagi doonaa wadada Balligubad dhagax boor wajigii u horreeyay baa inoo dhamaaday alignmentkeena iyo GPS-keenu halka ku taagnaa waa cafuufley cagaftii banayntu halkaasay ku taagantay waxaa ku jirta cagaftii labaad ee graderka ahayd
malqacadda hoosta ku sidatay oo iyadana mar labaad la geliyey si ay u xaadho gufida u nadiifiso baabuurtu ay u maraan iyada oo wadda ah oo cad oo aan daamul iyo maxaanku idhaahay caratuul midna la dhigin oo loo arkay inay fududaynayso waddada inuu isticmaalo iyada oon aan weli qabiyaa intaa waxaa noo raaca gps-ka intii ka dhiman waa ilaa dhagax buur taana dhammaystirkeedii baa lagu jiraa odayaasheenni maanta waxay joogaan jigjiga hawshaasina way soo dhammaantay wii kadib baa laga yaabaa insha allah bismillaahi kariim hawshaas inay dhammaato wixii intaa inoogu xigaa waxa weeye inaynu u howlgallo caratuulkii jaygii iyo daamurkii inakoo la kaashan doonna insha allah bismillaahi kariim dowladda deegaanka soomaalida oo dee waddadaasi ay sharciyanna ka tirsan tahay kana soo baxday xaqna u leh wuxuun baan ku soo gebagabayn lahaa maxaanku idhaayay communitiga reerka ee kala duwan ee ururada in ay ka soo qayb qaataan horumarkaa uu reerku gaadhay ee lagu xisaabtamayo inay ka soo qayb qaataan oo muruq iyo maal iyo maanba ay kaga soo qayb qaataan taasu maynu ku gaari karnaa runtii horumar ugu dambayn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda deegaanka soomaalida oo dee waddadaas ay ka soo baxday madaxdeeda kala duwan iyo deegaanada kala duwan iyo dowlad ahaanba heer gobol iyo heer federaal wuxuun baan ku boorin lahaa inay iskaga soo garab taagaanoo dadaalkaan muujinnay ay nala qabtaan oy nagala wareegaan waddada mas-uuliyaddeeda halkaa markaanu gaadhsiinay waan mahadsantii bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd qorshihii rabadaantii aynu soo bilownay rabadaantii hore wuxuu ahaa oo aynu inoogu hirgalay 14 kilomitir oo ahaa dhulkii ugu darnaa ee geliga la odhan jiray inta u dhaxaysa magaaladhiish ama deegaanka inaadan gaaslayda ilaa iyo gumburaha intaasi way inoo hirgashay ololihii rabadaanta oo markaa noqday ololahan dambaynu qaadnay face 1kiisii noqday face 2gii ama qaybtii labaad ee ololaha waxaynu isna ku dhammaystirnay 6 kilomitir oo halkan beligubad leh ay ku soo gaadhay carrakaawadu ilaa iyo banka intii jilicda sanayd ah intaa kadibna waxa raacaysa 11 kilomitir oo kale oo iyaguna markaa u dhaxeeyay jabaaqa iyo habaasweyn u dhaxeeyay iyo 3 kilomitir oo habaasweyn iyo laamida u dhaxeeyay oo iyaguna hore loo sameeyay laakiin noqosho iyo yara ballaarin markaa lagu sameeyay alxamdulillahi rabbil caalamiin intaasina face 2gii bay noogu dhammaatay waxaan markaa la socodsiin lahayn ciddii ka qayb qaadan jirtay waddada hadday yihiin gurmad oonu aad ugu mahadnaqayno in labadaa faysba ay gacan weyn ku lahaayeen kaalin laxaadnana ka qaateen ganacsatada iyo cid kastoo waddada wax ku darsan jirtay in fayskii saddexaad oo ah inta banka gumburaha ka sokaysa iyo beligubadle u dhaxaysa halka iminka caratuul ku joogo laga bilaabo ilaa gumburaha la gaadhayo oo ilaa 14 kilomitir noqonaysa intaana in rabadaanta ay qorshaysan tahay in hawsheeda la dhammaystiro halkaana ay ku dhammaystiranto caratuulkii waddada inta laamida mooyaane intii harsanayd ee ilaa beligubadle alxamdulillahi rabbil caalamiin maantana sidaa injineeradu ka warrameen waqtigii way koobtay daqaaiq baa lagu imanayaa ama waqti aad u kooban baa lagu imanayaa beligubadle dhiidhi ma jiro oo gaadhi dhiidhi ka baqanaya ma jiro boodhkii faraha badnaa ee xilliga jiilaalka gawaadhida dhibtu ku hayay ma jiro waddada markaa wanaagsan ee quruxda badan ayaynu samaysannay waa ilaahay mahaddii waxaan leeyahay loo diyaar garoobo rabadaantii waxbay nagama xigaan in hawsha aynu dhabarka u dhiganno tunka aynu u ridanno aynu dhammaanteen ka wada qayb galno ilaahina subxaana watacaala waxaynu ka baryaynaa in ilaahay uu ka abaalmariyo cid kasta oo waddada wax ku darsatay ururadii markaa khayriga ahaa ee ka qayb qaatay waddada iyo guud ahaan shacbigeenna qof kasta oo kaalin ka geystay waan ugu mahadnaqaynaa xukuumaddana waan ugu mahadnaqaynaa iyadoo faysaskaa hore gacan ka geysatay ta dambena insha allahu tacaala aanu filayno in gacantii hore oo kale ay ka geysan doonto aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa maantana sidaa laga warramay beligubadle markaa caratuulkii soo gaadhay halkaa waxay iskaga xidhmayaan waddadii kale ee kayd ka warramayey ee beligubadle ilaa dhagax buur
oo iyaduna qorshaheedii meel fiican u marayo aad baan idinku mahad celinayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.